السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada dhamaantiin halkan waa shirkadda dhismaha ee Dalsoor Construction Company. waxaan la wadaagaynaa dhismahan oo ah nus block ku yaala magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda New Hargeysa ee agagaarka hoteelka ka. dhismahani wajahdiisani waxa weeyaan 9 mitir weeye, xagga dambana 24 mitir buu saana u yahay. markaas waxaan doonayaa inaan gudaha galno isla markaana aan aragno insha Allah taala qaabka aan dhisan kareynay saan dhisnayba dibadii waa aragtaan muuqaalka qaabka aan u sameynay oo dareemi kartaa runtii guryaha qurux badan weeyay. nus block weeyaan, gudihiisu waa ilaa 4 qol hurdo weeyay iyo fadhiga iyo cuntadii. marka insha Allah waa arki doonaa albaabkan gelinay gelinaa weeyay. marka saa soo gashidba halkan waxaan noqon doontaa parking-kii hadii la hayno. halkan waa parking daaqada weynayna muuqatana waa fadhigii gurigu muuqaal ahaan saas uu samaysan yahay. wajahdiisa hore wataa diyaanso tan waxa weeyaan daaradii weli lama nadiifin oo maydhistii iyo waxaas oo dhan waxayo halkii u dambeeyay. halkan waxaa ku jira suuli iyo macaal laundrygiisii. tan daaqadaasi muuqatana waa kijadii. halkan markaa gelayna marka waxaa lagu talagalay wheelchair haddii la saarayo ama qof curyaano kale fuulayo iyo haddii qofkii caadiga fuulayaba labadii qayboodba wuu leeyahay weeyay. marka gudaha ayaan galayna hadda. intana waa iska baranda weeyay. xagga waxaa ku jirta waa kijadii. halkaas waa kijadii weeyaan. halkaasaan ka soo galnay gurigaan markaa gelaya kadib qadar insha Allah taala weeyay. markaan soo galaba guriga waa ka decoration kaas uu leeyahay daarad yaroo waasaca oo leeyahay aad fiican weeyay. tan koowaad waa qolkii fadhiga weey, ma sha Allah. waa qolkii fadhiga waa qol runtii waasaca weey. waxa soo baxaya qolka kale caadiga waxa kamid ah qolkan baa kamid ah tusaale ahaan oo kale qolkan oo kale isaguna kamid ah. isaguna waa jeeda qol ma kani waa suuligi common-ka ah ee dadku isticmaalayeen weey. waa suuli runtii aad u waasaca wanaagsan. xagaas waa iska luuq yar oo banaanka looga bixi karo. daaradana waa weyn tahay. halkana waa qol kale isaguna soo soco. kana waa qol kale isaguna halkan iyadana luuqaas looga bixi karaa. daaqadaha half ventilation loo baneeyay. hadaad albaabka furataan light fiican ka soo galaysa. kan marka soo gasho waa qolkii hurdada weey oo dambeeya. marka kaas waa suurigi. kana waxa weeyaan qolkii hurdada. marka qolka hurdada waa ma sha Allah waxa weeyaan qolka waasaca. suuriga isaguna waa ma sha Allah ka suuriga aad iyo aad u weyn ma sha Allah isaguna. haddaba cid kastoo danaynaysa in dhismo loo dhiso qurux badan waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan. fadlan nagala soo xiriir lambarada shaashada qoran. aad iyo aad ba mahadsantihiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatuh.